maamulka gobolka Togdheer ayaa soo afjaray shaqaaqadii ka dhacday deegaanka Gumburlibaax oo ka tirsan gobolka Togdheer kulankaasi lagu soo afjarayay shaqaaqadaasi oo ka dhacday aqalka madaxtooyada ee gobolka Togdheer waxa lagu dhaariyay 40 oday oo ka soo jeeda beelaha shaqaaqadu dhexmartay waxaana kulankani goobjoog ka ahaa barasaabka gobolka Togdheer taliska ciidanka booliska ee gobolka Togdheer iyo militariga cuqaal salaadiin iyo waxgarad ka soo jeeda labada beelood ee shaqaaqadu ku dhexmartay deegaanka Gumburlibaax gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax taliye ku-xigeenka ciidamada booliska ee gobolka Togdheer iyo abaanduulaha ciidanka qaranka Soomaaliland ee qaybta 12aad ayaa labada beelood kula dardaarmay inay ilaaliyaan nabadgelyada isla markaana la shaqeeyaan ciidanka qaranka inaan ballan qaadno heshiiskii hore fulintiisii waa u taaganahay boqolkiiba 90 waa naga fushay boqolkiiba 10 baa hadhay intaasna inaan fulinayno haddii Ilaahay ka dhigo heshiiska dambe guddidaa labada reer isla garteen oo u garnaqaysaana wixii ay soo saaraan ayaa noo maxkamada iyaga inoogu gooda annagana waxaanan ballan qaadaynaa inaan fulinayno Ilaahay baanu ka magan galay intaasoo qof oo dhaarta u qaaday reerkoodii u qaaday hadday beenoodo meel ilaa ma fadhiisanaysa dib reerkuun bay ku soo noqonaysaa waxaan leeyahay guddiyahaas waxa weeye ha lala shaqeeyo ha loo hoggaansamo garsoor baa laydiin qabtay aa iska doorateen kalsooni baa malaa siiseen insha allahu waxgaradkiina way idinku dul joogaanana way isku dul joogaan ha loo hoggaansamo nabadgelyadana dee sidaa laynoogu dhaariyey baynu awalba ugu dhaarsaneen yayna tii hore kala noqonin tii horeba inta la dhaartay bay wax walibana daacadda ayuu nimayo ku yihiin dhibaatadu weligeed way soo dhici jirtay rag baa ka tarin jiray waa la dhammaynayay qaas war salaadiin baa la laayay salaadiin baa rasaasta la dhacay markaasaa laga heshiiya madaxweynayaal baa la dilaa waa laga heshiiya waxa weeyaan arrintu daacadnimaday ku xidhan tahay anigu waxaan idinku dardaarayaa hadal badan ma gelayey labadiina aqoo ilmaade rayaalo arrinta nimanka guddida kala shaqeeyo daacadnimo kula shaqeeyo cuqaasha salaadiinta iyo waxgaradka labadaasi beelood ee shaqaaqadu dhexmartay oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan nabadgelyada isla markaana u hoggaansamayaan amaawiirta xukuumaddu ka soo saarto xalinta shaqaaqadani qadarrada ilaahay deelaho wixii dhacay ama bari hore ha dhaceen ama bari dambe ha dhaceen waxa ku dhacaan qadarka ilaahay wixii dhacay waxaan u qaadanaynaa inay qadarka ilaahay ku dhaceen wixii imanka jooga waxaan kaga shaqaynaynaa oo kaga shaqaynaynay ilaahayna dee markhaati ka yahay intaan ka shaqaynaynay ila quluubaha ilaahay unbaa yaqaana dadkan lama oga dee ilaahay mooye bini'aadanka kelima oga qof walba wuxuu kaga shaqaynaya wanaag iyo nabadgelyo iyo tasliix iyo walaalnimo annagoo arrinta jujubaan hoosta kaga wad sida xaqiiqdaana hawshu waxaa ka dhamma ninka wax ku dhacaan baa wax dhammeeya ninka wax dhimaana wuxuu wax ku dhammeeyaa dhaahinta waa labadaas waa ka wax ku dhacaan oo samra waxna maqla iyo ka wax dhimay oo wax dhaahiya labadaas baa wax ku dhammaada anagu toban guddi baanu nahay 20 baanu noqon doonaa waanu isi iman doonaa waanu idiin dhaaran doonaa ilaahay wuxuu nagu ogyahay wax idinku kala odhan doonaa cidiina maqashaana way sii bulaani cidiina maqli weydana ducada alla habaarkiyo ducada baa alla laga aqbalaayo imaamada xun baan sanaa dhulkaan ku dhufanaa markaa nihayad wanaagsan iyo safarad wanaagsan iyo aslaax wanaagsan in ilaahay idin waafajiyo ayaan ilaahay ka baryayaa waa inoo wadadan gidigeenba meelba xabad kabriidi ku dhacdaayo dabeetana markaasay meesha doonto ka dhacda ay fidaan nabadda halkaa isugu dhaarateen ilaahay haynoo aqoon colaadda naartaa lagu galo oo colaadda aan muslimku isdilo ilaahay baa lagaga fogaadaayo naartaa lagu galo colaadda waa lagu kala dhintaa oo waa lagu qaraabada iyo cid walba waa la gooyaa inkaaro badan bay sababtaa saas darteed
mar haddaynu dee innagu dad muslima baynu dad ehelo qaraaba ah weeyaan dadka wuxuu u baahan yahay dadka inay u taliyaan dadka waxgaradka marka waxa weeyaan waa balaayo u baahan waa balaayo aan haddii aan laga hortegin dee dhibkeedu aanu siya ku xallin أحمد سليمان عرب أحمد كافي تلفزيون عالمي Bulsha TV برعو.